magaalada Helsinki caasimadda waddanka Finland waxaa ka socda shir ay soo qabanqaabiyeen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee waddankan Finland. Shirkan waxaa lagu casuumay in ka badan 300 oo dhaqaatiir ah oo dunida daafaheeda ka kala yimid, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo aqoon-yahano kale. Qaar ka mid ah dadka soo qabanqaabiya shirkan oo aan wax ka weydiiyey ujeedka shirka ayaa ku jawaabay. mudane gudoomiye shirkan quruxda badan ee aad soo abaabusheen oo Helsinki ka dhacay sidee idinkuugu dhalatay inaad ku fikirtaan intaanu ruux oo dhaqaatiir inaad dunida ka keentaan oo Finland isugu keentaan? aad iyo aad baan mahadsantahay Sharmaake. horta magacay waxaa la dhahaa Khaliif Cawad, waxaan ahay gudoomiyaha dhaqaatiirta reer Finland. su-aashaas runtii waxay nagu dhalatay markii aan aragnay baahida ka jirta waddanka, oo taas waxay nagu sababtay inaan isku dayno dhaqaatiirta Yurub iyo wadamada noo dhow inaan isku keenno si future ahaan aan waddankeena wax wada qabsano. muhiimadda ugu weyn dadka isku yeelna taas ahayd. marka xubno naga mid ah ayaa waxay tageen hadda Soomaaliya tageen oo soo arkeen isbitaalada iyo marka runtii rajada ugu weyn taas nagu keentay. rajaan ka qabnaa waddankeena aan ku laabano oo dadkii wax barno iyaguna wax ka faa'iideysano. ujeedka ugu weyn oo shirkan laga lahaa muxuu ahaa? waxaa waaye inaan isku dayno inaan wada hadal ka bacdi inaan ka fikirno sideen anaga bulshadeena halkan joogo wadamaheena joogo aan caawin lahayn iyo wadankii hooyo sideen maxay ahayd horumarkiisa dhanka oo maxay ahayd healthcare kasaan u wada shaqeyn lahayn. marka waa waxaan nagu jirto, waxaan rabnaa wixii ay waalidkeena ku soo dadaaleen anagana inaan sii siino oo dadkeena u celina. Sharmaake aad horta u mahadsan tahay. magacayga waa Dr. Maxamed Axmed, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dhakhtar waddankan Finland ka howlgala. waxaana ka mid ah sidoo kale guddiga qabanqaabada madashaan maanta meeshaan laiskugu yimaaday. waayahay sidee u aragtiin marka kulankan aad iclaamiseen oo intaanu dhaqaatiira isugu keentay? runtii kulankan aad iyo aad u noo dhiirigelinaa, khaasatan markaan aragno kasoo qaybgalayaasha oo dhaqaatiir runtii dunida qeybaheeda kale ka yimaaday. almost 300 dhakhtar runtii madala iskugu yimaata ma sahlana. marka aad noo farxad gelinaysaa, waxayna runtii nagu abuureysaana mataqaanaa rajo in runtii Soomaaliya rajo leedahay. Soomaalida runtii diasporada wadamada ku noolna in ay rajo leeyihiin oo intaanoo dhaqaatiira runtii ka fakarayno aayaheena iyo ummadeena maxaan u qabanaa. Doctor, shirkan imise idinku qaadatay inaad qabanqaabisaan yaa gacan idinka siiyey dadka casuunteen tira ahaana imise ka soo qayb gashay? shirkan qabanqaabidiis wuxuu qaatay 1 sano. waxaa ka soo qayb gashay ilaa 340 qofood. dibaadan waxaa ka imaatay ilaa 130 qofood oo marti ah oo hadda Helsinki noo imaadeen. marka hadda safar Soomaaliyeed ka timid oo Soomaaliya soo aragtay, maanta waxaa dhex taagantiin fursad intaasoo 100 oo dhaqaatiir oo Soomaaliya. Soomaaliyana waxaa ka jirta baahi sax ah oo caafimaad iyo waxbarasho dhanka caafimaadka ah. ma ka fikirteen dadkan in Soomaaliya ay tagaan? qorshaheena markaan conference ka qabanay saas ahayd bal dadkii hadda dhalinyarada inta badan takhasusay heleen dadkooda dalkooda inay caawiyaan rabaan. marka waxaan rabnaa inaan insha Allah xiriir sameeyno isbitaalihii dalka joogaan sida haroodi group ahaan u tagno oo wadankii aano dadku u caawino. marka qorshaheena uu ku jiray markaan conference ka qabanay. bismillaahir rahmaanir rahiim. horta magacayga hadaan ku bilaabo Xamse Ibrahim Xasan Cayna Baalidaha, waxaan ka mid ahay xubin ka tirsan guddiga maxaa la dhahaa ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dalkan. waxaan kaloo ka ahay xubin ka tirsan guddiga qabanqaabada xafladda runtii aadka u qurux badan. maanta runtii nasiib waxaan u yeelanay inaan ku wada kulanno ilaa 9 wadan dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo nooga wada yimid ilaa 3 qaaradood aan dhahay. maasha Allah, marka xaflad aad u qurux badan oo qiimo badan ba halka ka dhacday oo waxaan rajaynaynaa inay tusaale u noqoto dhammaan dhalinyarta qurba joogta iyo kuwa waddanka joogaba. xafladan ujeedana isku tashi iyo maxaa la dhahaa wada tashi baa lagu sameeyey. marka waa Ilaahay mahadiisa, alxamdulillah. anigoo ah agaasimiye guud ee wasaaradda caafimaadka ummadda federaalka ee Soomaaliya inaan halkan Finland magaalada caasimadda u ah Helsinki aan uga soo qayb galo anoo u jooga safar shaqo inaan ka qayb galo
kulanka isugu yimaadeen dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha hadday ahaan lahayn dhakhaatiirta ku nool Mareykanka iyo Yurub runtii wuxuu ahaa maaragtay isu imaatin ka wasaarad ahaan aan u aragnay inuu muhiim yahay maadaama halkan isugu imaanayaan kaadir caafimaad oo xoogan anigu hadda waxaan ka imi muxuu ahay dalka Sweden baan ka imi shirkan soo aaday runtii waxa weeye fursad aad iyo aad qaali u ah aan hore u dhicin oo aqoonyahan aad u fara badan oo caafimaad ka shaqeeya ay degan yihiin waddankan waxaa kaloo yimi dhakhaatiirta wakiilka ah wadamo kale oo Yurub ah marka tiro xoog leh iyo Mareykan iyo meelo badan baa laga yimi waxay tusaysaa taasi in muxuu ahay awoodda aqoonyahanka caafimaadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool ay yihiin kaalin weyn oo haddii laga faa'iideysto haddii loo yeero oo qayb ka qaataan dalka muxuu ahay horumarkiisa iyo muxuu ahay caafimaadkiisa sharafka aad u mahadsan tahay fursaddan ay siisay waana ku mahadsantahay si aad uga soo qayb gashay adiga SNTV waa salaamaya waxay ku imaatay fikrad maadaama dhalinyaro badan qaasatan oo qurbahan ku kore oo Mareykan iyo Canada iyo Yurubtan kala ku baahay oo waddankooda weligooda arkin dadkiina in la isku xiro professionalki dhakhaatiirta qaasada caafimaadka ah oo la isku xiro aswareysano xog wareysi kadibna xitaa ay imaato marka anagu isbaranno oo iska warqabno in wixii xitaa waddankeena hooyo aan u qaban karno inaan u qabanno ayaan insha Allah fikradda meesha ka hirgashay markii hore intaan Finland joogtaas ku imaatay kadib waxaan la hadalnay dadka Scandinavia-da kadib marba talaabaan soo qaadayna waxaan u mahadcelinaa ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee Finland oo runtii maanta seminaarkan ama konferensigan aadka u weyn abaabulay juhdi geliyey waqti badan macnaha siiyey inay isu keenaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool Yurub Mareykan iyo Canada Sharmaake Abuukar warbaahinta qaranka Helsinki Finland